magaciisu afraad waa Axmed Xasan Maxamed Ciyo balse waxaa lagu yeeraa ama loo yaqaanaa banaanistiisa Macaani wuxuu ufka yimid sanadii 1995 taasoo ka dhigan daadiisu inay tahay 22 sano jir ku dhashay degmada Hodan gaar ahaan xaafadda Bakaaraha oo ku soo barbaaray kuna nool ilaa haatan ciyaaryahan Macaani waa yaraanka hooya Ambiyo Cumar Afrax iyo Aaba Xasan Maxamed Ciyo kuwaasoo qoys ahaan ka kooban 3 gabdhood iyo 3 wiil culayskiisu waa 64 kilogram halka dhererkiisa qiyaas ahaan yahay 1.52 mitir gugiisii 17aad ee 2011 ayuu xidigan galay dareen jecel wuxuuna la wadaagay gabar lagu magacaabi jiray Xamdi lamaanahaasi curdunka ahaa wuxuu xiriirkooda socday muddo 1 sano ah balse ma aysan suurtagelin inuu sii socdo haasawahooda halkaasna waxa uu ku waayay dareenkiisii jacayl ee ugu horeeyay Axmed Xasan Macaani oo kadib xilligaas go'aansaday inuu albaabada qalbigiisa gabi ahaanba ka xiro dhanka jacaylka ee la sheekaysiga dumarka kubad burburi Axmed Xasan Macaani waa laacib jecel waxbarashada wuxuuna dhameeyay dugsiga Quraanka Kariimka 4 jeer kadib ayuu bilaabay inuu dhigto iskuulka isagoo aad daadiisa u yartahay waxaana waalidiintiisa ay ka mid dhigeen ardayda iskuulka Ar-Raxmaan kaasoo ku yaala degmada Hodan gaar ahaan xaafadda Albarako wuxuuna nasiib u yeeshay inuu ku dhameeyo heerkiisa waxbarasho hoose dhexe sare ee iskuulkaas wuxuu ahaa Macaani mid kaalin wanaagsan ka gali jiray imtixaanada iyadoo ay xasuus mudan tahay inuu kaalinta koowaad ka galay fasalka ee dugsiga dhexe kaalinta labaad fasalka dugsiga sare ee form 4ka iyo fasalo kala duwan oo sidoo kale kaalmo uu ka galay asagoo waqtigiisa ugu badan galin jiray wax aqriska gaar ahaan maadooyinka uu xariifka ku ahaa ee Englishka historyga chemistryga iyo xisaabta uu aad u jeclaa taabuurkana ku soo bandhigi jiray wacdarihiisii fahan ee xiisadahaasi inkastoo uu soo gunaanuday heer waxbarashadeedkiisii aas-aasiga ahaa Axmed ayaa sanadii 2007 iyo 8 waxa uu suurtagali waayay in uu bilaabo jaamacadda sababo ay ugu weyneed dagaalkii ka qarxay caasimada ee dhaliyay in laga qaxo qaar kamid ah degmooyinka Muqdisho ayaa markaasi qoyska xidigaani u miciin bideen inay ku noolaadaan deegaanka ceelasha biyaha oo badi dadka u ruqaansadeen heerkiisa kubadda cagta ciyaaryahan Axmed Xasan Macaani wuxuu xirfadiisa kubadda cagta ku soo bilaabay heerka hoose ee xaafadaha isagoo u ciyaari jiray koox xaafadeedkiisa FC Jabra xilligaas uu jiray 8 sano xidigan wuxuu watay nambarka 10aad maadaama uu ahaa mid kamid ah furaha guulaha kooxda Macaani wuxuu kamid ahaa dhalinta ku nool xaafadda Bakaaraha kuwada loogu jecel yahay kubadahooda waxaana ku tartami jireen dhalinyarada badankood inay la ciyaaraan Macaani waayo wuxuu ahaa mid had iyo jeer furfuran kaftan badan oo dabeecad wanaag ku caanbaxay sanado kadib wuxuu bedeshay kooxdiisa asagoo kamid noqday naadiga Shanghai Junior oo si lamid ah uu ka xirtay maaliyadda nambarka 10aad oo xirashadeeda aad u jeclaa ciyaaryahan Axmed Xasan Macaani 2011 bishii koowaad Axmed Xasan Macaani wuxuu noqday dheeman isagoo jira 17 sano maadaama ay isha ku hayeen kooxo badan si ay u keeni lahaayeen kooxahooda balse nasiib wanaag waxa ay heshay kooxda Geeska Afrika oo xilligaas ciyaaraysay horaalka heerka 3aad ee sida hal ciyaareed oo matalaya kooxda Geeska Afrika ciyaaryahan Macaani waxay u ahayd mid waqti wacan iyo waayo fiican oo ku qaatay isagoo bandhig wanaagsan sameeyay taasna waxa ay soo dadajisay ama sababtay in kooxo badan indhaha ay la raacaan dahabigan waxaana suurto gashay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee dekada 2012 bishii shanaad ayuu u ahayd isagoo 18 sano jir ah maalintiisii koowaad oo caga dhigta xarunta kooxda dekada oo leelinaya macallin Cali Buu kaasoo u arkay xidigaani inuu yahay mid mustaqbal wanaagsan ku leh kooxdiisa iyo shaxdiisaba waxa goorada loo suray lambarka 15aad ee kooxda dekada taqabiya aroos nolol daacado aan wada takayno ashaqo darare farxad iyo tamasha daynkina nagu simo ciyaaryahan
axmed xasan markii uu kusoo biray kooxda dekada horyaalka ayaaba iska ahaa mid gabagaba ah wuxuuna nasiib u yeeshay inuu safto kulankiisii ugu horeeyay ee kooxda xilli ay guuldaro xanuun u ahayd kooxdiisa ay kala kulantay dhigeeda Hegan ciyaar ku dhamaatay 4-2 oo lagu lagday kooxda dekada. xilli ciyaareedkii 2013 ciyaaryahan Axmed Xasan Macaani wuxuu bedeshay lambarka 15aad waxaana loo dhiibay lambarka 6aad ee kooxda dekada oo hogaamiye u dooratay Rugcada Macalimo Geele oo isna laacibkan uu ahaa kan ugu yar kooxda ku aamina qadka dhexe kooxdiisa wuxuuna ka soo baxay Macaani shaqadii loo idmaday oo ku muteystay jaa'izada xidiga ugu muhiimsan kooxda dekada FC. marba ciyaaryahan haduu ka soo baxo booskiisa shaqo noqdana lafdhabarka koox waxaa shaki ku jireen inay hunguriyayaan naadiyada kale ee jaadka la ah taasoo ku dhacday Axmed Xasan Macaani oo sanadii 2014 ka mid noqday kooxda Saxafi oo isku dhis ballaaran isku sameeynayay waxaana macallin Sheekh Saalax oo kooxda horkacay uu hibeeyay isna nambarka 10aad oo aad ku jeclaa xirashadiisa xidiga kooxda ku cusbaaya Macaani. Axmed Xasan Ciyo Macaani ayaa kooxda Saxafi wuxuu la joogay muddo 2 sano ah oo badankiisa ku yeeshay sumcad iyo magac uu maanta huban yahay balse ma dhicin in uu ka sii mid ahaado kooxda Saxafi waayo kooxdiisii hore ee dekada ayaa garawaasatay in ay weysay laacib muhiim ah dib ayuu la soo siixatay mar kale laacibkeedii hore Macaani walow uu dhaawac lug jab ah soo gaaray kulamadii ugu dambeeyay ciyaaryahan Axmed Xagaagan 2016-2017 wuxuu u ahaa midkii ugu fiicnaa waayihiisii ciyaareed isaga iyo kooxdiisa dekada oo kula guuleystay horyaalka Soomaaliya oo kooxdu ay hantasay muddo 18 sano kadib waxaana inuu muhiim yahay kooxda xidigana lagu muujiyay funaanadihii dabaaldega kooxda oo ay ku qorneed soo kabsasho wacan Macaani sawirkiisana lagu dul xariiqay waana mid kamid ah dhiirigelinta ugu fiican oo ay kooxi u sameeyso kubad qaybiyahooda ama burburiyahooda. ka hor sanadkan ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda wuxuu u raacay safar dibadda ah oo ay ku tageen wadanka Andariska ahna ee Djibouti tartanka jaamacadda Carabta oo ay ka qayb galayeen kooxaha horyaaladooda ka soo gala kaalinta labaad balse nasiib daro tartankaasi way ka soo hartay kooxda kubadda cagta dekada qaab qorituur ah ayaa lagu soo reebay maadaama ay ahaayeen 3 kooxood waxaana kaliya laga reebay hal koox hanaankii qorituurka waxaa ku soo baxday kooxda Djibouti Telecom oo qayb ka ah tartankaas. dhanka madalita qaranka ciyaaryahan Axmed Xasan Macaani 2014 ayaa loo magacaabay inuu matalo calanka Soomaaliya balse nasiib daro ma aysan noqon inuu raaco xulka qaranka Soomaaliya dhaawacyo awgood laakiin sanadii ku xigtay ee 2015 ayuu xidigan mar kale ka soo muuqday liiska xulka qaranka Soomaaliya xilligaas oo ay ka qayb galayeen tartanka CAF ee 20 sano jirada oo ay martisoorayeen dalka Ethiopia isagoo qarankeena The Ocean Stars ka lagu neenaasana la ciyaaray isla xulka Ethiopia 2 ciyaar oo ka dhacday Djibouti iyo Addis Ababa xilligaas ilaa iyo iminkana waa mid muhiim ka ah ciyaaryahan Axmed Xasan Macaani wadanka Soomaaliya iyo kooxdiisa dekadaha oo qayb ka yahay. gudaha intaas ayaan ku soo gabagabeynayna taariikhda ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda dekada Axmed Xasan Ciyo Macaani wala wada jirkiina Sarkiin Xaashi Nuure iyo Cabdifataax Cabdirashiid Abu Karnaani usigu qaaliya qiimad kula hayragtayda xasuusigu qaaliya